waa maalin kale oo mucjiso ah. Sheekh Mala Ali Kurdi hadalhayntiisa ma ahan mid dhamaanaysa. Maalin walbana wuxuu la imaanayaa mucjisooyin waaweyn isagoo adeegsanaya Quraanka Kariimka ama wax ku daaweynaya. halkan shakhsiyaad Soomaaliya ayaa jooga sidaad codka ka maqlayso. wiilkan kursiga ku fadhiya ma ahan Soomaali, sida muuqata waxa uu naafo ka yahay lugaha, mana ahan mid kici kara oo waxa uu saaran yahay kursiga dadka naafada ah ay ku socdaan. balse alla idinkiis arag sida uu isku bedelo daqiiqado yar kadib. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. balse marka hore haddii aad aaminsan tahay mucjisooyinka Alle iyo in Quraanka Kariimka uu daawo u yahay xanuun walba, muuqaalkan like saar oo sii faafi. inaad like saarto muhiimad weyn ayay u tahay barnaamijkeena si dad badan ay ugu cibri qaataan sida uu Quraanka Kariimka u yahay daawada kaliya ee xaqiiqiga ah. sidoo kale share leh oo ku soo biir page-keena adigoo follow dhahaya si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena kale ee xiisaha leh. ku mahadsanid la jaanqaadkaaga. أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. wiilkan dhalinyarada ah waxaa halkan la keenay isagoo aan socon karin, sidoo kalena rajo badan aan ka qabin inuu lugihiisa ku dhaqaaqo. Sheekh Mala waxa uu mar walba ku soo celcelinayaa in Quraanku uu daawo yahay, alla dartiisna uu wiilka ku caafimaadi doono. bal daawo waxa dhex mara sheekha iyo wiilka dhalinyarada ah. قدرتي من شر ما أجد وأحاذر. هذا دعاء النبي 7 مرات. لا بسم الله 7 مرات. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 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 هذا دعاء النبي. يلا استيقظ ولا تخاف. كله بالصفوف. كل استيقظ لا يخاف. استيقظ يا الله. لا تخاف. الله أكبر. لا تخاف. ما sha Allah, wiilka waa isagan istaagay oo weliba soconaya socod la mid ah midka carruurta yaryar marka ay socodka baranayaan. bal eeg mucjisadan la yaabka leh. sheekhan waxa uu mar walba la soo muuqanayaa ficilo qariib ah oo uu ku tilmaamay daaweynta Quraanka Kariimka oo kaliya. adiga aan haddii aad ku faraxsan tahay in wiilkan yar uu sidan ku caafimaado isagoo curyaan ah oo aan dhaqaaqi karinna uu lugihiisa dib ugu socdo, muuqaalkan like saar oo sii faafi. sidoo kalena follow dheh page-keena adigoo magaca kore ku dhufanaya si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran page-keena. ogeysiis ma u baahan tahay inaad YouTube-ka lacag ka samayso mana ku dhiban tahay sidii aad YouTube lacag uga samayn lahayd sabab la xiriirta shuruudaha adag? haddaba hambaliyo, waxaan ku haynaa inaad si fudud YouTube lacag uga samayn karto ugana gudbi karto shuruudaha adag ay qasab ka tahay in laga gudbo. sidaan wada ognahay in YouTube aad lacag ka samayso waxay u baahan tahay buuxinta 2 shuruudood oo kaliya. kow, in 1000 qofood ay subscribe ku saaraan channel-kaaga. shuruudda labaad ayaana tan ugu adag, waxay noqonaysaa in 4000 oo saacadood la daawado muuqaaladaada. taasina sida laga warqabo wax sahlan maahan. sida caadiga ah YouTubers-ka dhawaangalka waxay ku qaadataa in labadan shuruudood ay buuxiyaan bilooyin, xitaa marmarka qaar ku dhawaad sanad. taasi oo niyad jabisa da'yarta jecelna YouTube-ka lacag ka sameeyaan. fursadan waa mid dahabi ah, bal ka warna haddii aan kuu sheego halkaaga ama in 1 ama 2 isbuuc oo kaliya shuruudahaasi lagugu buuxin doono. Daawud Media adeegan wuxuu kugu qabanayaa $160 oo kaliya. 2 isbuuc oo kaliya ayaa shuruudaha oo dhan lagugu buuxin doonaa. waxaadna u baahnaan doontaa oo kaliya inaad dalbato xayeysiinta YouTube-ka, kadibna lacag ayaad ka samayn kartaa. haddii aad u baahan tahay in laga caawiyo adeegyada aan hore u sheegnay, la xiriir taleefanka tirsigiisu yahay ee WhatsApp-ka +252 617 14 8 6. garaac lambarka ciwaanka sare kaaga muuqda si loo xalliyo baahidaada YouTube.